بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبع هداه. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات والآلهين مبارك شاب حديثهم بردقايان مانت بإذن الله تعالى. جرك استوء وقود على الدعوة ذا بإذن الله تعالى. داوينك أشياء دوننا بإذن الله تعالى، وداوين أما كتاب كلاهي كجران عز وجل، أما سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أما علماء المسلمين أيها شاكتي أو كتب الطب النبوي أيات كهلسة. waxaa ugu horeeya oo qofka muslimka haddii uu jirado uu ku caafimaadi karo waxaa ka mid ah التوكل على الله، إلهي tala saara عز وجل. waxa labaadna القرآن، إلهي wuxuu dhahay وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. نبينا wuxuu dhahay القرآن شفاء لكل داء علمه من علمه وجهله من جهله. قرآنك waxa weeyaan daawo jiro kastuuna u yahay, dadka qaar ay yaqaan qaarna ma yaqaanaan. tan saddexaadna waxa waaye biyaha waa daawo, jirooyin aad u badan daawo u yihiin. tabaaraka allah. ilaahay wuxuu dhahay فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج وجعلنا من الماء كل شيء حي. marka biyaha waa caafimaad, jirooyin badan daawo u yihiin. arinta afaraad waxa weeyaan alcasal, malabka. ilaahay caza wajalla kitaabkiisa wuxuu ku yidhi yakhruju min butuuniha sharaabun mukhtalifun alwaanuh fiihi shifaa'un linnaas. shinnidaa laga hadlay, caloosheeda waxaa ka soo baxa sharaab, waa malabka. fiihi shifaa'un linnaas. ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu dhaha waxaa ugu jira dadka caafimaad. nabigeenana sala allahu calayhi wasalamne waatuu tilmaamay ummadeyda caafimaadkeeda wuxuu ku jiraa saddex. waxaa ka mid ahaa malabka. arrinta shanaad zaytu zaytuun, saliidda la dhaho olifka, waa daawo. ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa wuxuu ku yidhi min shajaratin mubaarakatin zaytuuna. 7 jeer uu ku sheegay subxaanahu wa tacaala zaytuunka qur-aanka uu ku sheegay, wuuna ku dhaartay wazaytuunna wuu yidhi subxaanahu wa tacaala. laga faa'iidaysto. arrinta lixaad in ilaahay la xuso caza wajalla maalinkii iyo habeenkiiba 5 salaadood ka bacdi, markaad seexanaysid, markaad soo kacaysid, gurigaada ka baxaysid, waxaa kugu nasiixinayaa kutubta adkaarta. waxaa ugu fiican kitaabka la dhaho saxiixul adkaar, sheekhul albaani allah u naxariisto. number 7 geedka ama caleenta la yiraahdo waraqu sidri. waraqu sidrina waa nasaaix alculamaa almuslimiin, faa'iido badanaa laga helay. waa geedka keliya saaxiriinta ayna isticmaalin balaayaha ku dhacdo. walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin. uma shaqeeyo, laakiin qofka mu'minka ah oo jiran waxa weeyaan haddii uu isticmaalo waxyaalo badan uu ka burburinahayaa oo sixir ah. number 8 timirtana ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa wuu ku sheegay. nabigeenana sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi qofkii subax walba 7 xabood timir ah oo cajwo ah cuna, waxa weeyaan baaraka allahu fiikum, sixir ma karaayo biidni illaahi tacaala. sidoo kale nabigeena wuxuu ku daray sunna ma karayso. xadiidka u noqo waad heli doontaa biidni illaahi tacaala. waxaa ku soo xiga baaraka allahu fiikum caleen la yiraahdo assana maki. soomaalida qaar waxay dhahaan jaleelo, soomaalida qaar waxay dhahaan sanamuka. caleentaas cagaaran iyadana waa caafimaad. nabigeena wuxuu ka yidhi sala allahu calayhi wasalam waxay daawo u tahay jiro kasta markii laga reebo saam. saxaabada waxay dhahan yaa rasuulallah, saam maxaa la dhahaa? nebiga wuxuu dhahay dhimashada calayhi asalaatu wassalaam. waxaa ku soo xiga assanuut. nabigeena sal salam wuxuu dhahay sanuudka wuxuu daawo u yahay jiro kasta markii laga reebo assaam. saamna waa maxay oo muxuu yahay ayay dhaheen saxaabada nebiga sala allahu calayhi wasalam. markaasuu nebiga wuxuu dhahay almowt. haddaba sanuudka waa maxay? sanuudka culamada muslimiinta waa isku khilaafeen. qaarna waxay dhaheen waa malabka, qaarna waxay dhaheen maya waa kamuunka, qaarna waxay dhaheen waa geed la yidhaahdo shamar ama funnel seed ingiriis lagu dhaho, qaarna waxay dhaheen waa yaansuunka, qaarna waxay dhaheen maya yaansuunku u egyaho oo waxaa waaye geedka la dhaho naanakhada, caloosha ayuu nadiifiyaa. marka ama ha noqdo yaansuun, ama ha noqdo kamuun, ama ha noqdo shamar, ama ha noqdo geedka la dhaho naanakha, ama ha noqdo geedka la yidhaahdo karaawiya, intaasoo dhan waa isku eg yihiin, waa geeda isku eg. waxaana ugu xoog badan inuu yahay kamuunka, dhudhuubka ama xawaajiga kaan niraahno. waxaa ku soo xiga alxabatu sawdaa. alxabatu sawdaa waa miraha. nabiga wuxuu tilmaamaya sala allahu calayhi wasalam saliideeda ma aha, iyadoo shiidanna ma aha, ee waa miraha naftirkooda. wuxuu tilmaamaya nabigeena sala allahu calayhi wasalam, sheekhulislaam ibn taymiya wuxuu dhahay ilaahay
iyo rasuulkiisa sallallahu alayhi wasallam haddee wax noo sheegaan way u daleeyihiin, wax kale kama wadaan. marka nebiga wuxuu yidhaahday waxaad ku dadaashaan calaykum bihadihi alxabbati asawdaa fa ina fiiha shifaaun min kulli daa ila saam. shifaa ayaa ku jira xabbada sawdada ilaa saam, dhimashada mooyaane. waxaa ku soo xiga caanaha lo'da. caanaha lo'da waa daawo. nabigeena sal slam wuxuu dhahay isku daaweeya caanaha lo'da, waxaan rajaynayaa ilaahay inuu caafimaad dhexgeliyo, liannu geed walba ayay ka cuntaa. waxaa ku soo xiga alxijaama, toobinta. toobintana baaraka allahu fiikum uu nabigeena sala allahu alayhi wasalam wuxuu ku yidhi alxijaamatu cala alriiqi amthal wa fiiha shifaaun wa baraka. wuxuu dhaha nabiga sal salam calooshaada goorta ay maran tahay subaxa hore haddii aa istoobtid way ugu fiican tahay, waxaa ku jiru dhaha shifo iyo barako. waxaa ku soo xiga assadaqa lala baxaayo. nabigeena wuxuu dhahay sal salam daawuu mardaakum bisadaqa, ku daaweeya dadkiina jiran sadaqada ku daaweeya. waxaa ku soo xiga khalka. nabigeena sala allahu alayhi wasalam wuxuu yidhaahday nicma alidaamu alkhal, maraq waxaa ugu fiican khalka. khalka waa caafimaad, jirooyin badan ayuu naftirkiisa sidoo kale daaweyn karaa. waxaa ku soo xiga qustulhindi ama qustulbaxri. nabigeena sala allahu alayhi wasalam wuxuu yidhaahday calaykum bihada alqusti alhindiy ama alcuud alhindiy, ama wuxuu yidhi wacalaykum bilqusti albaxriy fa ina fiihi 7 ashfiya, 7 daawa keligiis ku jirto dha nabiga sal slam. waxaa ku soo xiga geedka la yidhaahdo attiin. tiinka waa daawo, jirooyin badan ayuu daawo u yahay. waxaa kugu filan ilaahay caza wajalla inuu ku dhaartay fii kitaabihi wattiin inuu ku yidhi. waxaa kuugu soo xiga baaraka allahu fiikum geedka la dhaho arrumaan. ilaahay qur-aankiisa ku sheegay caza wajalla. waxaa kuugu soo xiga alkaafuur. waxaa ku jira daawo, ama saliiddiisa ama caleyntiisa naftirkeed daawo fiicana laga helaa aanan dhammaanaynin. tabaaraka allah. mooska waa daawo, ilaahay qur-aankiisa ku sheegay caza wajalla. waxay ka mid tahay furuudka la magacaabay, kitaabka ilaahay caza wajalla lagu magacaabaya ka mid tahay. wa talxin manduud. wuxuu dhahay imaam albagawi allah u naxariisto, culamada salafka waxay dhaheen waa almows. mooska waaye. mooska waa daawo, caafimaad badanna wuu ku dhex jiraa. waxyaabahaasoo dhan aan sheegay waa waxyaabo laga faa'iidi karo baaraka allahu fiikum. kitaabka ilaahina way ku jiraan, sunnada nebigana sala allahu calayhi wasalam way ku jiraan. ee kuwaas ha laga hormariyo waxyaabo badan aana ku jirin. 1 kitaabka ilaahay, 2 sunnada nebiga, 3 dhakhaatiirta iyo culamada muslimiinta kutubtooda. intaasaa ku ekaysiinahayaa. waxaa laga yaabaa dadka qaar inay dhahaan oo wuxuu ka tegey geedo kaloo badan oo la xusaye. maya kamaana tegin, walaakiin waxaana u sheegin geedahaas kale waxaa laga yaaba dadka qaar inayna helin, dhulalka qaar inaan laga helin. walaakiin haddii marka loo baahan yahay in la helo geedahaas, waan kuwaan sheegay, meel kastoo joogtidna waa ka heli kartaa. adduunka meesha arabsi deganow waad ka helaysaa. haddii hal aa ku dari karo waa zabiibka. zabiibkani waxay ka mid tahay waxyaalaha sakada laga bixiyo, khaasatan dadka beera sakadiisa waa laga rabaa. marka zabiibka isaga waxyaalaha waxa weeyaan laga heli karo meelo badan ayuu ka mid yahay. intaas oo waxyaabaha aan is leeyahay waxa weeyaan in tacliiq laga keeno ayaa dhici karta, faqad waa baraarujin. wallahu tacaala aclam, wasala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed walaalihiin mubaarak shaab. fadlan haddaa ka faa'iidaysatay walaalaha muslimiinta waad u diri kartaa say uga faa'iidaystaan. wassalaamu calaykum waraxmat ullah.